madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa galinkii dambe ee Jimcaha soo gaaray dalkani Koonfur Afrika waxaana garoonka diyaaradaha ee magaalada Pretoria ku soo dhaweeyay safiirka Soomaaliya saraakiil ka tirsan dalkani Koonfur Afrika iyo wasiiro hore u joogay dalkan Koonfur Afrika oo ka qayb galayay shirka China and Africa. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la filayaa inuu kulan gaar ah la qaato madaxweynaha dalka China kaas oo looga hadlayo xiriirka labada wadan ee China iyo dalka Soomaaliya. sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inta uu joogo dalkan Koonfur Afrika ayaa la filayaa inuu kulan kale la yeesho madaxweynaha dalkani Koonfur Afrika Jacob Zuma kaas oo looga hadlayo horumarinta qaaradan Afrika. afhayeenka dawladda Soomaaliya Daawud Aways oo TV-ga caalamiga Universal waraysi ku siiyay hoyga uu ka degan yahay magaalada Johannesburg madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka warbixinaya socdaalka madaxweynaha. Santahay madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu ka mid yahay madaxda Afrika ee lagu martiqaaday shir madaxeedka Afrika iyo China oo ka dhacaya magaalada Johannesburg. taakasoo koona madaxweynaha waxa uu la kulmi doonaa madaxweynaha dalka China Xi Jinping. guud ahaan shirkani waxaa looga hadli doonaa waa shirka China iyo Afrika arrimaha iskaashiga labada dhinac ee Afrika iyo China. sidaad ogtahay China waxay aad u daneynaysaa goorahan dhow qaaradda Afrika hore iskaashi ayaa uga dhaxay laakiin haatan waxa muuqata iskaashiga la sii xoojinayo oo qaaradda Afrika ay noqotay qaarad haatan aad loo daneynayo. dhawaan waxa magaalada Delhi lagu soo gabagabeeyay shirkii Afrika iyo India haatan waxa dhacaya waa shirka Afrika iyo dalka China. marka aan u soo noqdo kulanka madaxweynaha uu la yeelan doono madaxweynaha China Xi Jinping waxa kulankaasi lagu gorfeyn doonaa ama looga hadli doonaa xoojinta xiriirka labada dhinac iyo in dib loo soo nooleeyo iskaashiga iyo xiriirkii labada dhinac ka dhaxeeyay. sida ogtahay China mashaariic badan ayay ka fulisay Soomaaliya haatan waxay dawladda Soomaaliya daneynaysaa maadaama Soomaaliya dib u dhis lagu sameynayo in China ay kaalin weyn ka qaadato isla markaas kulankaasi gaarka uu dhexmarayo labada madaxweyne ee Soomaaliya. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka mid ah madaxda qaaradan Afrika ee ka qayb galaysa shirka China and Africa kaas oo looga hadlayo horumarinta qaaradan Afrika iyo xiriirka China kala dhaxeeya qaaradan Afrika. waxaana la filayaa in heshiisyo wax ku ool ah ay kala saxiixdaan dawladaha China iyo Soomaaliya. Aydruus Cabdi Xasan TV-ga caalamiga Universal Koonfur Afrika.